Ma ka mid tahay dadka fikirka badan ama sida xad-dhaafka ah uga fikiro wax walba oo ay samaynayaan? Xaqiiqadii noloshu way kugu adkaanaysaa marka aad si xad-dhaaf ah u fikirto, inkastoo ay mararka qaar faa'iido leedahay. Inta aadan isdhibin, naftaadana aadan stress gelin, raac tilmaamaha aan ku siinayo si aad u joojiso fikirka badan. Xad u sameey waqtigaaga marka aad go'aan qaadanayso. Marka aan go'aan qaadanayno, in badan oo naga mid ah way ka labalabeeyaan inay go'aanka saxda ah qaataan. Anigu qaas ahaan waan ka labalabeeyaa marka aan go'aan weyn qaadanayo. Haddii aad sidayda oo kale tahay, isku day inaad xadaysato waqtiga aad fikirayso. Tusaale, u sheeg naftaada in aad qaadanayso go'aanka ugu dambeeya aadna samayn doontid saacaddu marka ay tahay 1 saac oo fiidnimo. Marka aad waqtigaaga xadaysato, xaqiiji inaadan dhaafaynin waqtigaas. Jimicsi sameey. Jimicsigu waa waxa ugu fiican ee caajiska looga saaro maskaxda iyo jirka, maxaa yeelay fikirka faraha badan waxa uu sababaa stress, taas oo qofka u keeni karta niyad jab. Haddaba aad meelaha lagu jimicsado si aad isaga saarto stresska ku jira maskaxdaada iyo jirkaaga. Waqti qaado. Inta badan waan ka baqanaa inaan waqti qaadano si aan wax weliba u go'aansano. Haddii aad ka labalabaynayso in aad go'aan qaadato, 2 dhibaato ayaa ku haysata. Waa inaad bilowdaa inaad marka hore mid xallisaa, tan kalena aad meel iska dhigto. U xalli mid dhibaatooyinka. Iskana daa fikirka faraha badan.